fadlan subscribe saar haddii aad ku cusub tahay channelkan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Saaxiibayaal, waxaan idin la wadaagayaa dhowr xigmadaha oo aan idin soo xulay ee dhageysi wacan. Khabriyada waxaa ka buuxa dad badan oo ka fikiri jiray markaad weynaato ayaad wax wanaagsan samaynaysaa ama sanadka dambe ayaad isbeddel samaynaysaa. Ma jiro qof lagula ballamay inuu sii noolaanayo ilaa uu waayeel noqdo. Ha sugin waqti kale haddii uu saaka waaga kuu beriyay daqiiqad walba oo aad neebsanayso waa fursad kale oo Alle subxaanahu wa tacaala ku siiyay ee ka faa'iidayso. Goortii uu albaab xirmo mid kale ayaa furma, laakiin waxaa inta badan sii eegaynaa weliba si shalayta ah albaabkii xirmay iyadoo aan arki weyno kan inoo furmay. Dhimashada qof inoo dhow ama aan naqaanay maaha kaliya inayna xasuusiso wixii uu ahaa ama aan tacsi u dirno, ee waa inaan xasuusanaa safarka dambe ee nolosha. Mar kasta oo aadan fahmin dhibaatada nolosha kaa haysata, indhaha isku qabo, gacmahana kor u taag, kadibna dheh Allow, waan ogahay in wax walba qorshaha ku dhacaan, wax kastana sabab ay ku dhacaan. Allow iga gudbi marxaladan adag. Halkaa ayaan kusoo gabagabeynayaa dhowrkii xigmadood aan idin soo xulay. Waa walaalkiin Cabdi Yuusuf oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.